Xaawo Aadan Xasan waa gabar naqshadaysa dharka kadibna gacanteeda ku tosha iyadoo adeegsanaysa aaladda harqaanka. Dharka ay soo saarta ayaa ah noocyada kala duwan oo xirtaan dumarka. waxay marka hore naqshad ahaan u sawirtaa dharka hadba nooc qurxoon oo ka heli karaan dumarka. Xaawo ayaan weydiiyay goorta ay ogaatay inay harqaan la noqon karto oo ay soo saari karto dharka dumarka. waxaan bilaabay 2015kii laakiin markaa waxaan ku toli jiray gacanta dun iyo cirbad dharkan toli jirayna wuxuu ahaa markaa dhar aan ayagoo tolan oo ragoo kale inta soo gado fanaanada rag waxaa u bedeli jiray fanaanada dumar inta jarjaro aan naqshadeeyo oo si fashion aan gacanta ku toli jiray anoo cirbad iyo dun adeegsanayo 2017kii 2017 waxaan bilaabay inaan aan harqaan ku tolo aabaan rayga isiyo oo dhahay haddii gacanta ku toli kartid dhowr naqshado waxaan tusay marka aan mare inta keenay aan jarjaray oo raacadi aan gacanta ku tolay oo mustacmal haddana la isticmaalayo aan waxba iska bedelay marka wuxuu dhahay haddii gacanta ku tolisid harqaan inaad ku tushida qurux badan marka waxaan bilaabay 2017 inaan harqaan ku tolo. dharka ay diyaariso naqshad ahaan iyo tolin ahaanba waxaa ka helay gabdhaha ay wax wada bartaan iyo kuwa ood wadaaga ay yihiin. haweenka qaar ayaa waxay u soo diraan sawirro nooca ay rabaan iyo sida uu ku soo baxayo habka toliinka. dharka kulligood naqshadeeda waaye ana alifay kullina ana gacanteeda ku talay. dharka naqshadooda cabaayadahan waxay ku bilaabmeen waxa aan program leh barnaamij leh wareysi waxa dhacday inaan dhaho maxaa xirtaan marka waxaan ku fikiray inta shay soo gadan xiran lahay waxaan dhahay maadaama la weydiinayo dharka ana aan sameeyay أنا شيء أنا leeyahay oo xirtaan rabaan aan gacanteeda ku talay. Xaawo waxay hadda diyaarinaysaa oo ay gacanta kula jirtaa in cabaayad ay ka soo dalbatay mid ka mid ah macaamiisheeda iyadoo ku xiran waxayna ii sheegtay in goordhow ay diyaarin doonto guud ahaan cabaayadaas oo ay siin doonto qofkii ka soo dalbaday. dharka ay soo saarto weli ma uusan gaarin suuqyada Muqdisho dadka ku xiran waxay ku qaabishaa gurigeeda iyo baraha bulshada. waxaan u mahad inaan saakadan qaato Xaawo ayaa ii sameysay horena mid ay iigu sameysay waxaan ahay customerkeeda waxaan jeclaan lahaa naqshadaha cusub inaan kala qayb qaato yani ay tosho inaan anigana iibsado oo maxaa jira aan ku labisto gaar walbana u baahan tahay inay ku labisto maxaa jira sheegeen dharaad qurux badan. Xaawo ayaan su'aalay marka la gaaro maalinta guurkeeda cidda diyaarinaysa dharkeeda maadaama iyadu tahay naqshadeeye diyaariyaba. insha Allah hadii la gaaro maalinka la aqalginayo in aan dharkayga rooska gacanteeda ku tasho hadafkaygu ka mid yahay anoo marka fashion designer in fashion designer kale dharka uu soo sameeyay xirto waxaan ka jeclahay inaan gacanteeda ku diyaariyo si qurux badan dharka maalinka xirna insha Allah. wax soo saarka Xaawo waxa uu ku egyahay hadda halkan laakiin qorshaheedu wuxuu yahay dharka ay diyaariso inay geyso gudaha suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.